Murugadu waa dareen aad u adag kaasoo qofka ku sababa in uu niyad jabsanaado, in uu gudihiisa cidlo ka dareemo, in uu rajo la'aan dareemo, isla markaana uu noqdo qof aan waxba danaynayn. Waxaa jira daawooyin loo qaato murugada kuwaasoo qofka waxoogaa nafis ah dareensiiya, balse daawooyinkaas xal waara uma noqdaan dhibaatada murugada. Waxaa jira qaabab kaloo badan oo aad kula tacaali karto murugada, nafisna ku dareemi karto, isla markaana gebi ahaan murugada kaa joojin kara. Muuqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa qaar ka mid ah qaababka lagu daaweeyo murugada, waana kuwan: jimicsiga iyo murugada. Waxa ugu horreeya oo aad samayn karto si aad murugada iskaga fududayso waa jimicsiga. Waxaa la caddeeyey in jimicsigu uu niyadda qofka si fiican sare ugu qaado, una wanaajiyo haddii si joogto ah loo sameeyo. Marka aad orod ama jimicsi samayso, jidhku wuxuu soo doonaa maaddo loo yaqaano endorphins, taasoo aad u yareysa xanuunka iyo dareenka murugada. Murugada iyo iimaanka. In aad Ilaahay aaminto oo aad aaminto in Ilaahay uu dhibka kaa saarayo waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee murugada aad ku joojin karto. Murugada iyo istresska. Murugada mararka qaar waxa ay ka dhalataa stress kugu batay. Haddii shaqadaada ama howlahaaga kale ee aad qabataa ay yihiin kuwo stress badan kugu sababaya, waa in aad wax badan ka barataa sida loo maareeyo stresska. Qosolka iyo murugada. Qosolku waa caafimaad. Markaad qososho, jidhkaagu wuxuu soo daayaa kiimika murugada yareysa. Xataa haddii aadan qosol niyad u haynin, isku day in aad qososho. Taasi waxay kaa caawin doontaa in aad nafis dareento. Murugada iyo iftiinka qorraxda. Aad iskugu day in aad hesho iftiin qorraxeed kugu filan. Cadceeddu waxay jidhka ku cadaadinaysaa in uu soo saaro hormoonka loo yaqaano serotonin, hormoonkaas oo ka mas'uulka ah in aad farxad dareento. Inaad maalintii 30 daqiiqo cadceedda socotaa waxay sare u qaadi doontaa niyaddaada, waxayna hoos u dhigi doontaa murugada. Murugada iyo fikradaha beenta ah. Mararka qaar sababta ka dambeysa murugada waxay noqon kartaa fikrado been ah oo meel ka baratay. Tusaale ahaan, fikradahaas beenta ahi waxay noqon karaan adigoo u malaynaya in aadan xalli karin dhibaatooyinkaaga nolosha, ama aadan weligaa guulaysan karin. Haddii aad adigu xaaladaadu sidan tahay, nasiib ayaad leedahay, sababtoo ah isla markaas oo aad iska saarto fikradahaas beenta ah, murugadu way kaa tegaysaa. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin saaxiibayaal sida aad waqtigiina qaaliga noogu hurteen. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.